xisbiga wadani laantiisa Finland ayaa xaflad soo dhaweyn u sameeyay taageerayaal ku soo biiray. xafladan oo taageerayaasha xisbiga iyo madaxdoodu ka soo qayb galeen ayaa ugu horeyn waxa hadallo soo dhaweyn ka yidhi qaar ka mid ah madaxda xisbiga, waxaana yiraahdeen waxaan soo dhaweynayaa oo gacmo furan ku soo dhaweynayaa oo xisbiga wadani ku soo dhaweynayaa gaar ahaan Finland ama laanta Finland ku soo dhaweynayaa taageerayaasha cusub ee ka kooban 6 gobol ee Soomaaliland ee uu hogaaminayo Mr. Yusuf Muuse. waxaan leeyahay ku soo dhawaada xisbiga wadani laanta Finland iyo guud ahaan xisbiga wadaniba. waxaan leeyahay mar labaad xisbiga wadani waa xisbigiinii, waa xisbigeennii, ma aha xisbi reer, ma aha xisbi gobol, ma aha xisbi xaafadeed, waa xisbiga 6 gobol ee Soomaaliland ba mideeya ee dhexdooda la iska dhex arko ee ka dhex muuqda min Seylac ilaa iyo Dahar. marka waxaan leeyahay mar labaad ku soo dhawaada sidii ran qalbi furan ayaan idinku soo dhaweynaynaa dhammaantiin idinkoo isku duuban. marka labaadka waxaan leeyahay xisbiga wadani waa xisbiga iminka ugu baaxadda weyn leh xisbiyada qaranka ee jira, waa xisbiga ugu taageerada badan leh. taasi waxay muujinaysaa xulashada aad ku xulateen ee aad ka xulateen 3 xisbiba markaad eegteen, markaad fiiriseen qaab dhismeedkiisa, markaad eegteen muuqaalkiisa guud iyo taageeradiisaba. waa xisbiga mustaqbalka bedeli doona xisbiga talada hadda dalka haya insha Allah 2017. soo dhawaada xisbiga wadani waa xisbi qaran, waa xisbi qarankooda leeyahay, waa xisbi aynu rabno inuu xukuumadeenii hore halkay soo gaarsiiyeen Somaliland inuu ka sii ambaqaado oo ka sii kordhiyo. haddii xisbiyada ay soo galaan labadaba waa lagu faa'iidaa. reerka aan idhalay aniga iyo reer Axmed Dagax, labadaa reer hadday xisbiyada soo galaan labadaba waa lagu faa'iidaa. marka waxaan leeyahay ilmaaftiyaal aamina bahasha kaalaya wallahi markasta waxaa siyaasadiisa ku qoran inuu taageerayo dhalinyarada iyo dumarka. waa labada ugu badan ee xisbiyadu had iyo jeer inta lagu guuro oo kaambeynka lagu galo haddana hadhowto banaanka lagaga tago. waxaan rajeynayaa sida ku cad xeerka siyaasiga xisbiga wadani 30% inay ku leeyihiin dhalinyarada iyo haweenka. hadduu tartamo durduro taw ku wada siiyo marma wada tagaan wuxuu sii oran tiigso ka hore wadaniyo haddaad kala tagtaan maanta ay buuxdo tamartiinu mar kale oo aad ka taag darantiin baa la teebayaye. magaalada Ari Cadeeye ee lagu caleema saarayo suldaanka beesha reer Fiqishini hambaliyaan halkaan uga dirayaa anoo ka wakiila dhammaanba xisbiga wadani laanta Finland. waxaan idinka gudbinayaa salaan diiran saad u dhantihiin. berritaa shirkaasi qabsoomaya caleema saarka horaa loo doortay suldaanka. waa beeldhan oo xisbiga wadani ku soo biirtay. dhanka kale waxaa afka taageerayaasha ku hadlayay Yusuf Muuse Dhagadeero, waxaanu yidhi hadaladiisii waxaanu aad iyo aad idinka mahad celinaynaa sida sharafta leh ee wanaagsan ee walaalnimada ah ee kalgacalka leh, kalsoonida leh, islaamnimada leh, wada dhalashada leh ee xisbigeeda lagu soo dhaweeyey. taageerayaasha xisbiga ku soo biiray sida dee laga dhawaajiyey ma aha uun gobolka Togdheer ee waa gobolka Awdal, Maroodijeex, Togdheer, Saraar, Saaxil, Sool iyo Sanaag. toddobaadkii hore bay ahayd markii lagu wareejiyay gudoomiyaha cusub ee laanta Finland Isxaaq Cabdi Guuleed oo uu ku wareejiyay gudoomiyihii hore Cabdiraxmaan Cartan. aadan Yuusuf Cismaan, Home Cable TV, Finland.